الله عزة يا شرفت أسقناتي بان كوغو دارشي 5 دقيقة oo waqtigaaga kamid ah naftaada sii baar unug walba oo jirkaa kamid ah naxariista ku jirta bilaadantinimada ku jirta garashada ku jirta waxaynta ku jirta waxbixinta ku jirta nafsadaada jaaniskaasi ay ku fikirto wallahi qofka magacayga Soomaaligayga fahmayo maanta ay waa ka dheregsantaa xaaladda dalkeena ka jirta waxaana kuugu dhaaranaa oo magaca ilaahay saddexdiisaba isku daba dhigaya ilaha azza wa jalla annagoo aan waxba ahayn abuuray inuusan u weynin roob inuusan u weynin nabad inuusan u weynin naq u soo baxa inuusan u weynin cunto u siiyo inuusan u weynin inuu beerahooda ay u soo baxaan inuu daruur intuu dushooda soo saaro roob ka buuxo inay barwaaqiyo bashbash ay noqdaan inay caanaha noo keenaan annagoo magaalada joogna saan uga gadana ayaguna ay waxay rabeen uga bogtaan allaha sarreeya baan ku dhaartay inuusan ilaahay maqli weynin wiilka sanadka jira ama gabadha sanadka jirta oo calooshoodu gaajadu ay qaniinayso ilaa ay naftu uga baxdo inuusan ilaahay maqli weynin inuusan ogaan weynin inuusan dareemi weynin inuusan fahmi weynin inuu og yahay tilaabo walba iyo xanuun walba ay dareemahayaan dadkaas inuu ilaahay og yahay hooyada fiirsanaysa ilmigeeda ilaa ay naftu ka baxda asagoo hooyo dhuuntu waa ay qallalan tahay dhahaya hooyo biyo isii hooyada digsiga cidladaa dab ka saaraysa digsiga cidladaa hooyada dab ka saaraysa si ay ugu qanciso aan waxba ku jirinin wallaahi ilaahay inuusan xanuunka hooyadaas ay dareemayso uusan ogaan weynina wuu la socdaa wuuna og yahay wuuna arkaa wuuna maqlaa awoodna umuusan weynin inuu xaaladaas ka dhex bixiyo yaa waaye dadka loo dan leeyahay yaa waaye dadka loo dan leeyahay oo la fiirinayo oo lagu tusahayo waxa ay ka qaban karaan waa dadka intay markay cuntada cunahayaan dheregtu ay dhaafto caloosheeda ay ku sii hirqiyaan waaye carabkaa weli u sii baahan waa dadka ayagoo la dhimanahayo dhar qaali ah soo gadanhaya say xaflada u aadaan dadka ilaahay tijaabinahaya iimaankooda dadka ilaahay tijaabinahaya waxbixintooda dadka ilaahay tijaabinaya ka naxitaanka ay ka naxayaan qofka walaalkooda oo muslimka ah waa dadka malaayiinka ku bixinahaya xafladaha war ma xaflad baa maantayta noo taalla war haddaan Soomaali nahna ma xaflad baa maantayta noo taalla war inaan dhar gadanaa noo taalla war ma inaan 3 waqti wax cunaa noo taalla ilaah baa in ku dhaarshay waxaan maqlaysaa dad dhahaya xaqdarradii iyo dhibaatadii Soomaali geysatay baa laga jaraya wallahi ma ahan waxa iyaga laga jarayo waa annaga arkayno daawanayna ayadoo hooyo nafta ka baxaysa annahayna wax ma hayno ayadoo dahabku guriga noo yaalo annagoo talaajadu noo buuxdo oo 3 waqtiba wax cunayno weliba markaan dheeris u baahannahay inaynu ku darsanayno gad ilaah baan kugu dhaarshay haddaad waxaynin xataa dahabka guriga ku yaala gad bixi ilaa aad gurigaaga intaa ku laabatid aad shayna ka weysid aad bixisid maantayto ilaahay azza wa jalla habrin inaad dhiman doontid allah og bixi ayuutada kuu soo dhacday u dir dadkii ka jar ilmahaaga caanaha 3 waqti aad siinaysay hal mar sii ee badbaadi ilmaga Soomaaliya oo aad 24 saac 48 saac ugu dambaysa aan biyo cabin caana xataa iska dhaaf ilaahay baa ku dhaarshay Soomaalay kaca lacagaha koontooyinka ku kiin jiri doonaan qabriga markii lagu geeyana meeshaas uga dhaqaaqi doontii cidna ma soo xasuusan doonto ilaahay u hormarsada
إلهي أسوأ أودي سينتو إن أركينو بإنك إن أبوري كرايبو هدنا الرب سود جنواي سو إن كوكين تجابي سو نوغو تجابي إيمان كان يا وحق قبل كرين حالة الصومالي والله نوسويلك الصومالي قبل الصومالي أبها الصومالي المهيس الدعوان هاي لا نفتو كبحانا يقو قاجة هايسو إنو يسا أباهنين اللي انتهيدا واي إلهي وحو مقل بدن يهي قاجة المقع علوشي سدليس إلى ما قدرت تاسو جم قلب بديا وجنا حرون بديا لكن يا لو تجابين هيا أنت تبحين كرتين أنت تبحين كرتين وحواها يستين وحواها يسنا ضد كأننا وحوان طريق هرينا حوجنا وحواها يسنا يانا قصل منو بنانا يانا قصل منو بنانا أنت المسؤول مالت قاچة وبختنا يانا كنا على وشكو هردينا إلا عيدركتنا نفتح جرات سن jooji maanta waxaad soo gadan lahayd bixi lacagta dir waxaad haysid dir xoogaaga hadda awoodid dir ilaah baa inku dhaarshay kaca ilaah baa inku dhaarshay maanta oohin iyo qosol iyo wax noocad ma lahana hawl iyo maalgelin waa isku dugnay dad iyo duuye waxaas waa isku dugay ilaah mooye aadnina ma oga ma maqasho tabtaasaan noqon